بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن دقيستيال ومركلي برنامج كني شاكو قابن صاحبة قيمة قدرين تلقى مدنو قيبت اللي حسو الضنات الشيء كذي لما قاعد بحضي عيلكي جارية يا waxay noo joogtay maanta isguurseena filfilna lacag ugu soo qaatay $100 laakiin waxaan ku dhahay qorshe kale hadda ma harin wajigiis mar dambe istaagi kari laakiin boqolkeygan la iska yareysana waatan qaybtii 700 ee sheekada waanu halkaas ka sii ambaqaadno عرج روبلي يورن ما تودالن هاي ما تقدر سو عرراي وروان في عنا فدنا إيما يال ما فهمتي وافه دالكو ما جوجو يابي اسغاريبا هوشو ولي لما غارين فان ولا فرق ما قدنا اروس waa dhiman yahay gabadhii soo doonaa way dhiman tahay maxaad noo diyaarto nagu tala gashay adiga hadda he maamadii gabadha dhashayo guriga hooyadiina waa tahay maxaad noo diyaaris maanta dhana saaraashinki uu diyaarinayay wixii fadhigi waa badaalayba aniga dhan waa daalanahay gurigii dhan daamanki wixii dhan waa lagu warwareejiyay waa badaalay warmeysdeeshi biska waad wanaagsan tahay ureejay horta naag wanaagsan tahay dadku waxa la rabaa markay noo imaadaan hadda ayagoo qanacsan inta noo imaad ayagoo qanacsan inaan dirnaan laga rabaa waqtina waan ku xisaabtaminaa saacadaha nagu socoto ma fahanti adiga markuu waxa tahay hooyadii guriga tahay waxa lagaaga baahan yahay hadda gabadhii la soo doonana hooyadna waa tahay kaalin weyn inka qaata laga rabaa kaalin weyn waa ogahay kaalin weyn ma ahayne kaalin balaarana ka qaadana wax kale iska daay marka waa inaan hoosha qabanaa waa noolay soo socdaa sidii warka lagu sheegay odayaashii iyo cidii iyo reerkii oo dhan soo wada socdo war meesid shibnaani halkaan aadaayay hoosha war qabta hoosha dhinac waa aniga xaq soo galaya hoosh sii wada hawsha sii wada gabdhaha la sii hadal martida soo socoto marti intiina ku imaan waa laga faa'iideystaa alaabta sii diyaarsada gabdhaha ala hadlay hoosha qabta hoosha wala gaaska sii soo socda maanta hoosha noo qabta hoosha galaaska ii soo qabo alaabta dhaqitaanka ani lagu qormoontahay wixii alaab ana idin dhaqay saas waay gabadha hoosha la qabto barada khudaarta waa diyaarsantaa waa jiro dibitaanka la dhiman dabka si fiican iigu soo bardan si fiican u shiil walaalay naga bisleeyahay san adagkaan haye waaya wasasha hadda kan dibooya walaalay ada xawaajki horta adiga caajis aan u dhaawantay waxa si fiican nooga qabo xawaajin si xaye u tul ماشي وجهي ده بس كاري هادي ماشي بيجي دوت ما ياي لا بريسك وحار فرح الا تكبس انا وحار رياضه كان هوش هنقبطها هورير انا وحا كلا تورنا كبر ساسا كاربا هو يدعيس ودعيس انت قبطتها هو هوش alaabta adiga soo aruuriye waa idin dhaqaay ee gabdhaha adkaabta walaalay meelahan iyo waxa leedahay murta xaqitaanka iyo qurxinta aniga ana fiirsana hawlaha qabsaana waa u jeeda hawshan ina ana wajin karisteen wajin xalwada ee adiga maxaa noo qoray meesha maxaa noo furisa xalwada jidid aniga waqtiga 4 saac waxira nooga dhiman adiga waqti waxaan diyaar waaye gacmuhu jiray wax ku gooyana la idin kar geeskina ka qabta aniga geeskina ka qabanayna saas weey hawsha aan wada
السلام عليكم مصطفى وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وابا سوغينا أنا وابا سوغايه horta soo dhawo hawshina saacadna ma hayno waa inaan si degdeg ah u baxno marka qaartay dhowr mar telefoon soo diray waa inaan baxnaa marka wiilkina kulay meelaan kama dheer laba baabuur baa meesha taagan naasiro kaan diyaarta baabuurta noo diyaariyo waxaan rabnaa kulay adiga naga aqyaara sax أنا بدور مرة قبل ما أنا وقت دوني موقتها لكن ما أنت أذيع مكوك شرفايا ما دام أنت الشيخ مصطفى على أي حال قبل أن دونستين وحرب عوداش سنة نجتيرس وحي سوريا وحي كلنا واودنا وقباتي ما وحي ودنا واودنا مركا عقل قلن صح نجتيري صح وحن ما قبل أذير كذي عوداش ماشي جوه وعودي جاموري أو محن كوري ولود وعيك الشقين مقلقاتي قف متقان قف لقاتها قف لقاتي صح وحاسي كشغل وعمل كوده واي موقته وبروفيشنال مركا هذو نغا تيري حتى شاكدو كاسو بخسته انا يدا انا شفكو ودغا انا شفكو ودغا وايه وا دما هاي نكن كاي غاري او باوركي او سوغلا ديار وا باوركي لا ياب نيو كام بقول ماشي وكام موقتسو واقرتي وجهه عادي وماشي اني عادي تاع اقل سومالي بوش وحلا لسن موقته حكو قصرين لو ما قصرين لأن مقلنا هدينا مقلنا بس قبل إنه ديها هاي بس وايا أنا دنتنا كفر سنة مقطع واحد دنا قام جرت مقطع بس أقل سومالي شيء ساي مقار هديه كوس جيران قبر لك كرمنا أنا قبيو نصب إسلي كيان إسرب إسلي قبيو وذاك له هرنا إسقور سنتري قبيو وذاك له هرنا إسقور سنتري كافكي عروس كودي كافكي عروس كودي وي كافكي عروس كودي كافكي عروس كودي وي شله كبو قولي أبوي دايره كبو قبليو إنما أبدا بدون سي ربو بده كبو قبليو إنما أبدا بدون سي ربو بده تواتمد وإنا عرّا مش فدي ميال رابلو أضياش وإمادين بل إزديارية حاجي waxaan ku sheegayaa adiga dhinacii cuntada iyo dhinacii soo dhaweynta aniga ugu hadlay dhinaca cuntada iyo karanta iga adkay waxaas dhan diyaar waa hor goorme waxaan ka rabaa gabdhaha in Allah hadasha laga rabaa gabdhaha meesha martiya imaanayso gabadhana laga soo doonanaya waa in dad sharaf la noqonaa oo gabadha sidii loogu soo doonto u bixiya يار واي وحاس إذا أتكلم كلام عن قبلها يعون هاي قبل ما ديار ما شاء الله وما خشها وملينا فدي كعدتك وتقوى إماديني السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله هرتوا في عندي سود وهذا مركو هوريسا كسود وهذا قولي روبله يمشي أد قبل كسود دونتين كسود كأودا دبلو هرتوا واد وناكسنتين سود وهذا قولك فديان تجينا فريست فريق واكنا إنستا بل وهذا الشيء كيسود دوناي بل فريست هرت بيعبى إنستا وما سنتهاي ودونها أنك هالكان وكدونها واحد باتا مجران أرنتي اللي سكو أجاي معناها هوري أن معناها قرشه هذا إن لا دمية أيان أسو عنا إن دمينا مركا واكاسا هذا وحالي معناها أضي هدي لي هذا وحصابها معناها إنه وحلي أضي إنه وحلي معناها وحي ويلش أي قلدين ويلش أي قلدين أنا قديب أصحينا إن شاء الله لبض وحاول أنا وحين حينو يهين معنا المهنة أو كلاواي ما فهمتي مركا واكاسا أرنتا سان أسو عنا إن نحلنا وكاسا بل كل أضيق معناها وذات كله إلى صعد عن وديب روبله horta war waa lagu dhameeyay war waxa la yiraahdo hal yahay laba laga ma dhigo intaas uu walaalkay Mustafa sheegay
way ujeedada kulleyba gabar baan idinka soo doonanay sida caadada iyo dhaqanka Soomaalidu ay ahaan jirtayna waa la iska soo doonan jiray waana la isisiin jiray annaguna wixii xagga yaga ah iyo wixii raasamaal xagga yaga ah waa naga diyaar marka arintaas aan idinku soconay wa billahi tawfiiq odo dubadow horta waad wanaagsantihiin هذا العيب لنا مش يجينها كبر ولا سكسو دونا جري وانا لا سيجري سيدا نوغ سو دونتين ايان انيغن ادي سي كبدي اد سو دونتين ساعدان laga bilaabo magantiina ku jirtaa wabillahi tawfiiq macallinkina waa wadnaayo macallinkii oo nikaax sameyn lahaa waa kan wiilkina waa kana soo dhawaada waa kan ku soo dhaweey sheekh waa kan Soomaan sheekh assalaamu alaykum wa alaykum assalam sheekh aad baa maanta ugu faraxsanahay in halkan meherka uu ka dhaco wiilkii oo gabadha lagu nikaaxay aaway waa kan magacaada ii sheeg Cabdinaasir Cabdinaasir maxaa lagu daraa Cabdinaasir Xasan Geedi waa gartay meeqa sano ayaa jirtaa 22 sano Cabdinaasir hore ma guursatay maya markaana kuugu hore ismaano ha waa gartay adoo roblow gabadha magaceeda inoo sheeg gabadha waxaa la dhahaa Filsan Cabdinuur da'deeda waa 18 jir waa gartay gabadha hore ma loo soo guursaday mise waa gabar maya gabar waa gabar waa gartay walaayadeeda adiga ayaa qaadaa umaleynaa ha aniga soo wakiilad waa gartay meherkeeda waa imisa gabadha meherkeedu waa sidii ii sheegtay wiilkana kula heshiisay waa $500 Cabdinaasir waa aqbashaya umaleynaa waa sax waan ku heshinay gabadha $500 okay gacanta ii dhiib aqbalta qabiltu gabadhaas waan kuugu nikaaxay waa tahay intaas hadda noogu dhamaatay gabadhana waa kuugu nikaaxay wabillahi tawfiiq faatixada inoo mara ilaahay inoo khayr ka dhigo intaana waa sooreedii waad mahadsantihiin sidaa sooreeda noo siiseen sidii dhaqankaynu ahaa aniga kulley labaan u dhigay marka qaybtan waa adikaan ii soo celiyey qaybtaanna kulley waa okay waa ka guddoon diyaar martida waxa loo balqad galaas ma jeeda gobalo soo goleeyayo arrimaade hanaban qalbiga sacad loo ciyaaraye arrimaade hanaban geesiba gabar la siistaaye arrimaade hanaban niman hela ma hambayne hanaban niman hela ma hambayne hubee gob wanaagsan weeyaane arrimaade hanaban hubee gacal sharaf la weeyaane arrimaade hanaban hubee guurkooda lagu faraxe arrimaade hanaban niman hela ma hambayne hanaban niman hela ma hambayne mudanayaal iyo marwooyin waxaan aad ugu faraxsanahay inaad nagala soo qayb gashaan xafladan aadka u quruxda badan ay isku aroosayaan lamaanayaasha iscalmaday Filsan iyo Cabdinaasir lagu aaminaa kalo adigoo kale dhabtii waa lamaanayaal isku soo sabray oo intaasoo dhib isla soo qaybsaday haatan ay gaareen guushii ay rabeen waxaan leeyahay hambalyo waxaan ku bilaabaynaa dhinacii hidaha iyo dhaqanka bisin waxaan laga bilaabay nin baraka male bisin waxaan laga bilaabay nin baraka male birweeyaan oo islaamku badbaadiya birweeyaan oo islaamku badbaadiya aroos ka bilowday bayaxo wallaha ka dhigo
arooska bilowday bayaxo walaha ka dhigo arooska bilowday bayaxo walaha ka dhigo هو إيدين دعي الله أقبله الدعاء مدو قود مدو لو ذوي دحدا وسيدي ضرور عراتبه يسو دوالتا وسيدي ضرور عراتبه يسو الله كوبي اسكرا هاغو ود خير قبهلا oo farxad iyo noloshooda kubi isku fiicnaadaba وما هذا اليوم اللي لقوا فرحي مدني يوم مروى مهركودي دعي مرحبا يوم ذكت لهلا سعدي مشعرك ودشو أروس أولاد مسؤولة مسلم أهودي محمد يروغاي مبتغو مولا خيدي سيو أولاد مسؤولة مسلم أهودي محمد يروغاي مبتغو مولا خيدي سيو ruuclo orod waxaa raadinteeda ugu jiraba rabbi aqbal rabitaankaygiiye raaxo anigaa jooga maanta ruucbo iyo rajili waxay ku raaran tahay reerkii filsan ay ka roortay raadkeedase arki maayaan allow labaridde ma isku raacshin waxaa waa mare ruweydo oo xiriir naga dhexeeyey rabta waa anigii ku reeboo raas cusub waa anigii ka yeeshay caamirkii muddo u rucleynayay jacaylka filsan allow isaguna ma ka raayo rab cidlo ah ma ku haray raxmad eebba weeyo rajadeedii alle ii rumee waa anigaaba caawa reer cusub iyo galeelay malxiiska cilmi ahaa aawe saaxiib waykan nin wada isku soo daahaysa galabta hoosheeda in adan ku xilsaaray xagga labista xagga steelka inaad iga jeekinta adan ka rawi adna wax ma qadaa niyo kama soo daahayna xogaa adiga maartay isnaashka ku yardahay bal hadda sheeka kama daalay horta fiir qaabka labista suudka iyo xiran iyo horta ma u baahanahay beelbeeriga facebook inaan sameeyo mise sideedan ku qurux badanaa sidaan ku qurux badan tahay taygaadi suulki wixii dhan galabta meeqa gaari aad diyaarsan galabta meeqa gaari ay diyaarsan waxaas adigu iska daa aniga adaa u xilsan ka Soomaali hadda galabta waxaan rabaa inaan ka yaawo gaariyaasha aad diyaarsan magma aan malxiis kaaga dhigto waan ku soo xushaan ku dhax sax waa seewaadi adiga ibraabeen maanta waa insha Allah waa arooskaada wuxuu noqonayaa adiga sababta ku soo xuso malxiis aan kaaga dhigta waxay tahay inaad hawshaas karti u leedahay horta laag waxaad diiday tayga qaabku ugu xiran yahay tayga soo kugu xiran yahay okay waaye okay Soomaali ku dhahay cid wax ka sheegi karta male waxaan ka rabaa gabadha cid walaalkeedii u sheegtay horta inaan saacado kadib ku soo wajahana dhaqada kadib oo baabuurta soo bixi rabaan la xiriiray wixii dhan waa diyaar Soomaali diyaar bas waa marka waa bixina dhaqada kadib الله كوبي اسكرا هاغو ود خير قبهلا oo farxad iyo noloshooda kubi isku fiicnaadaba aan ka soo noqono dheesha waxaan rabaa iminka in aan baabuurta si nidaam oo meegaar ay banaan ku yaalin marka qof walba gaariga ugu soo horeeya ha raaco iyo arbushaad sameyn waxaan ka codsanayaa gabdhaha foodayaysan ku sameynin guriga marka la tago in ay isdagdagaalaan aroos in badan arrintaasaan ku badan مالك Let's get
تلفون بدي المقاضي maanta waa maalin aroos hadda dhow waxaa arkay aroos la galbinaya haddana waxaa maqlayo waxay tahay aroos kale la galbinaya hadda marka maxay tahay diyaboon aroos la galbinaya balaabanaa ku soo bax ya waa aroos aad loo soo qurxiyey ما شاء الله بلا سيفيريو والله والله حردي وروح ومدينه هاي ما يمو اللي جو حس عقلي قلبه شو بلا سيفيريه هاي الله وافرسن هاي ما صورة قلبها اسكابولا الله وافرسن يا روسيا سيفيريه هذا وحصعنا يا ماهن الله وعبد الناصر شد جعلك جارية وحيس كوبد الشيء روس في جارية واتسوى الروس يا بلاي أنا اللي تاكتاكنا ما قياسي كرومانتا انت هيقو حي قبتين فلسن يا عبد الناصر ولا قلبنا يا تاني وادويو لا ياب ملاهن ما بفيرينين بانيغا wixii aan soo sameeyay wanaago idin leeyahay abaal gudayo dhacdadan xanuunka badan ee hadda anigaan u jeedo tani waa dhacdo xanuun badan oo aniga igu dhacday mararka qaar waxa ay qabanaysaa abaal dambe bani aadam ha u sameeynin laakiin waxaan ka soo qaadayaa jacaylkii jaariyad وهاجاك dhageystayaal intaasna waxaan ku soo afjarayaa guud ahaan sheekadii la magac baxday jaariyad waxaan u mahad celinayaa dhammaanba dhageystayaashii sida sharafta leh ula socday sheekada innagoo u ballan qaadayna mar kale iyo sheekooyin kale inaan u soo bandhigi doono inta ka horeysa waa guud ahaan bahdii oo isku duuban oo idinku dhaafaysa sidaas iyo ma dhaafno